maxamed mar kale waad mahadsantahay waa runtaa maalin dhaweyto oon tegey dad dhabo waxaa soo baxay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo na soo dhaweeyay walow degdeg u ahaa socodkanagu oo nagu talagalay in arintii khilaafkii Soomaalida iyo Ormada waxoogaa maaragtay lagu damiyo inta maaragtay heshiis rasmi laga gaarayo waxaa runtaa waad sheegtay in dad badan oo Soomaali ah oo calankii wata soo deegaanka iyo xitaa qaar calankii Soomaaliya wata kii weynaaba sida kaarkii social media soo baxaan arintaasi aniga farxad bay gelisay sababtu waxa weeye saad ogtahay deegaankan geeska Afrika oo dhan waxa ka socda integration in dadka oo dhan la isu keeno dadku maaragtay inay dhaqaale ahaan bulsho ahaan isdhex galaan oo isjeclaadaan dhaqanku isfahmaan Soomaaliya waxa ka mid tahay deegaanka bay ka tirsan tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya markuu ka hadlayay sanadka cusub habeenkii dhaweeyay funaanadii uu xidhnaa ida aragteen mooyaane waxa ku yaalay calankii Eritrea iyo Itoobiya oo isa suran asmara dhexdeeda dadka Itoobiya calanka Itoobiya dad bootaa jira magaalada Addis dad fara badan oo calamada Eritrea wata iyadoo walaalnimada labada umood la muujinayo walaalnimada Eritrea iyo Itoobiya hadii la muujinayo walaalnimada deegaankana iyo Soomaaliya in la muujiyo wax diidaya ma jiro waxyaalihii gubaysigu keenay in qofku uu ka cararo waxa dadka ugu xiga oo uu arko inay halis tahay cabsi tahay marka aad baan u faraxsanahay dadku ashcaartooda ay jecel yihiin way muujin karaan of course Soomaaliya laba dal baan kala nahay inagu waxaan ku jirnaa dalka Itoobiya iyaguna walaaleyda wajaara weeyaan laakiin inaan astaamahooda qaadano finaadahooda la xidho wax dhibaato ma laha yaraatee waxay la mid tahay kuwa Mareykanka yimaadeen kan Mareykanka xidhan iyo ka Kenya xidhan iyo ka Kenya in la xidho dembi ahayn iyo ka Mareykanka in la xidho iyo ka Suudaan ka yimaadiyo oo ay finaadi Canada u qoran tahay ka Soomaaliya in la qaatana dembi ma kana ba inaga xigo inaga soo dhow marka intii aan meesha dadka qaxootiga booqanaya dadkii soo barkacay Soomaalida ahaa runtii waxaan arkay dhalinyaro yar oo calankaas haysta oo gabar baa iyadoo calanka haysata baa way daashay saasi qacanta ugu haysay dhulkay dhigtay marka calankii tu kala ka qaad calanka dhigin hor qaad marka aniga ahaantay runtii maadaama 12 sano wadanka maqnaa iddiilo fiican bay gelisay marka aan arkay dhalinyaro yar oo Soomaaliyeed oo astaamihii Soomaalinimada jecelba oo inay wax isu yihiin dareensan sababtoo ah dalkan waxa laga dagaalamay Soomaalinimada waxa ujeedadu ahayd in wax walba oo Soomaalinimo aan ka cararno oo aynaan sheeganin oo ma kan anagu manhi oo dambi loo arko in qofka dambi galay kale loo arko markuu calanka ku arko buluuga marka ma jirto maanta arintaasi aadna waan ugu faraxsanahay wax dhib ah leeyahay ma jirto weeraad